السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا سلام أصحابتا ميل بواجوكتا سو دوادا waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo afar qodob oo nolosha horumarin kara. qodobka koowaad hadaf cad yeelo. qodobka ugu horeeya waa inaad yeelataa hadaf cad. qof aan garanayn meesha uu socdo meel walba ayuu ku wareegaa. qofka hadduusan garanayn meesha uu socdo maanta dhan noloshiisa wareeg ay ku jirtaa. qor hadafkaaga waa inaad qortaa hadafkaaga diin waxbarasho dhaqaale jirdhis kuna shaqee talooyin yaryar maalin kasta. waa inaad qortaa hadafkaaga waxa aad rabto sanadkan inaad gaartid waa inaad qortaa. qodobka labaad waa nafta inaad edbiso. naftaada waa inaad edbisaa. samee waxa saxda ah xitaa marka aadan rabin. samee waxa saxda ah xitaa marka aadan rabin. waxa aadan rabin laakiin waa sax. samee waa inaad samaysaa. waqtiga ilaali. balanqaadka fuli. kana fogow dib u dhigis. weligaa wax dib ha u dhigan. biliishan la'aana riyooyinka ayay burburiyaan. qodobka saddexaad barasho joogta ah inaad wax barato. si joogto ah inaad wax u barato. aqoontu waa hanti aan la xadidi karin. akhri buugaagta dhagaysto muxaadarooyinka faa'iidada leh. baro xirfad faa'iido leh. diin baro ganacsi baro luqad baro dhaqaale farsamana baro. qodobka afaraad saaxiibka wanaagsan waa muhiim. saaxiibka wanaagsan dadku waa saameyn. ka fogow kuwa ku daaliya ka fogow. u dhowow kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xasuusiya ku dhiirigeliya horumar kuna tusa jidka saxda ee ku tusa. kuwa ku tusa jidka saxda ee raac wadadooda. hada billahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. muuqaalkan hadduu ku soo gaaro falowda waajibay kugu tahay. like-tana waajibay kugu tahay. share-tana waajibay kugu tahay. aad iyo aad aa mahadsantihiin.